ku cuslaado, arrin baa kuu cuslaato waxbaa kaa kuu toosi waaye, tallaabada iyo jihadaad qaadano waa soo xirantaa. dad fara badan oo xaaladooda sidaa ay tahay ayaa markaa jirta, laakiin nasiib xumo dadka wax faaliyay u tagaan, nasiib xumo saaxiriintay u tagaan, nasiib xumo waxyaabo kalay sameeyaan. rasuulku wuxuu kuu tilmaamayaa arrin qiimo badan oo dhibaato aan lahayn, ajirna aad ku helayso, ilaahayna arrinta uu kuu furfurayo subxaana wa tacaala. allaahum yaa allah waayo macnaheeda, ilaahayow laa sahla wax sahal ah ma jira ilaa maa jacaltahu sahlan, waxaad adiga sahasho ood fududaysa maahane. wa anta tajcalu alxasna, ilaahayow shayga murugta iyo dhibkii ciriiriga badan ayaad ka dhigtaa idaa shi'ta sahlan, haddaad doonto mid fudud. taasuu alla kugu fududaynaya subxaana wa tacaala. tuub asaga oo tilmaan waxaan inay culays iyo dhibaato yihiin asagood moogeyn. sidaa darteed dheh allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan, ilaahayow waxaad sahal ka dhigta mee wax fududaan ma jirinba. sixiroolaan wax fududayn karin, kaahintaan fududayn karin, islaam wax fiirisaan fududayn karin, tii gaxwada fiirisaan fududayn karin, tii turuka rugtaas fududayn karin, ilaa maa jacaltahu sahlan, waxaad adi sahal ka dhigta maahane. wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan, sidaa ayaad ka dhigtaa. maa yaquulu wa yafcalu, wuxuu dhihi lahaa samayna lahaa man adnaba demban, qofkii dembi galaa. bini aadamka kama maqna inuu dembi sameeyo, shiiqooda iyo midkooda ugu weyn, midkooda caamigii, midkooda caalimkaa, waxaan dembi dhacayn aan ka dhacayn ayaan jirin. bini aadam dhammaantiis khataa, wa khayru lkhataa'iina atawaabuun, inta toobakeenka badan ayaa u khayr badan inta gaftabooda ila subxaana wa tacaala nebigiisa. sidaa darteed qofkii dembi gala wixii uu samayn lahaa dhihina lahaa. maa min cabdin addoon ma jiro yundibu dambaabaya demban dembi oo fa yuxsinu duhuura, waisqaadka wanaajinaya, uma yaquumu istaagaya oo fa yusallii rakcatayn, laba rakcaduu tukanaya, uma yastakfiru allaha, ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya, ilaa gafara allahu lahu, ilahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala. dembi dhaafna weydii waa waxaad dhihi lahayd, wayse qaado laba rakacadoodba tuko waa waxaad samayn lahayd. intii hadduu la yimaado axadka ilaahay dembigiisa waa cabina subxaana wa tacaala. ducaau meeshaana duca waayo qadar shayطaani, shayطaanka burintiisa lagula ducaysiiyo iyo wa wasaawisihi, waswaasintiisana waxaad dhahaysaa ama loogu sameeya alisticaadatu billaahi minhu, in ilaahay shayطaanka laga magan galo. kow alaadaanu aadaanka, sidaa darteed ayaa ilmaha marka la dhala waxaa loo sameeyaa dhegta midigta in looga aadaamo. sababto waxay tahay canug la dhalaayo mijra buu dhahay nebiga, ilaa kelida ayaa shaydaan ka dura. ma arkin miya canuga asagoo saarqa oo qaylinaya ayuu ka soo baxaa caloosha hooyadiis, shaydaan ayaa kelida ka dura buu dhahay nebiga, ilaa maryamo iyo wiilkii ay dhashay maahane, waa nebi ciise calayhi asalaam. ayagana waxay ku badbaadeen, hooyadeed ayaa tiri innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashayطaani arajiim. khayrkaas iyo wanaaggaasay ku fakadeen. idan aadaanka waa qiimo badan yahay. awlaadda marka la dhalo waxa ugu horeeya oo dhegahooda ku dhaca waa inuu aadaanka noqdaa, si uu shaydaanku markaa uga ordo, markuu soo bixi rabaa malmalkiisa iyo maradii lugta loogu xiri lahaa iyo dirtii maarta u diyaarsan. maxaa aadaan la sameeyaa maanta? waa dhibaato dhib badan. alaadaan aladkaaru waa dikri ilaahay iyo wa qiraa'atu lqur'aani, aqrinta qur'aanka. waxaasoo dhan shaydaanka lagu racdeeyaa. adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu, qofku hadduu ku dhaco wax uusan raali ka ahayn ama uusan jeclayn, aw amase guliba calaa amrihi, amarkiisa looga guulaysto, wuxuu dhihi lahaa waxbaa kaa halaabay, arrinbaa si kaa noqotay, maxaad dhahaysaa? ha qaylinin, gacmaha ha isku dhufanin, wax kale ha samayn, laakiin qadarullaahi wamaa shaaa facala dheh. ilaahayaa arrintan qadaray, wuxuu doonana waa sameeya subxaanahu wa tacaala. arrintiisaa rabtay u noqon weysay, arrintaadii baa lagaaga guulaystay, arrintii baa kugu cuslaatay. qadarullah, ilaahayaa sidaa qadaray, waayo wamaa shaaa facal, ilan ilaahay maa shaaa kaana, wamaa lam yasha lam yakun. wuxuu rabo waa ahaadaan, wuxuu rabana wuxuusan rabinna ma ahaadaan subxaana wa tacaala. tahni'atu lmawluudi lahu, axadka wax loo qala sidii loogu tahniyeyn lahaa, iyo wa jawaabuhu, jawaabtuu bixin lahaa. canugaa loo dhalay, tahniyad ayaa nalaga rabaa, asagana inuu noo soo jawaabo ayaa laga rabaa. in laysku tahniyeeyo ayaa fiican. baaraka allaahu laka fi lmawhuubi, lakaad dhahaysaa wixii laguu hibeeyey ilaahay ha kuu barakeeyo. wa shakarta alwaahiba,
wabalaqa ashuddahu waxaad ugu shukrisaa waahidka iyo qofkii kuu hibeeyey waa ilaahi waa gaara midkan lagu siiyey adeegiisa warusuqta birahu hana lagugu arsuqa birigiisii baari ahaashadiisa wayaruddu calayhi waa jawaabayaa asagana almuhanna'u qofkii u tahniyeeyey ayuu u jawaaba fayaquul wuxuu dhahayaa baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajazaaka allaahu khayran warazaqaka allaahu midlahu waajzala sawaabaka intaasuu ugu jawaabayaa ilaahay adigana ha ku barakeeyo wabaaraka calayka dushaada allah barakeeyo wajazaaka allaahu khayran khayr ilaahay ha kugu abaalguda taantaad ii soo qaaday iyo hibayntaad iigu tahniyeysay warazaqaka allaahu midlahu bisilkiisoo kale allah kugu arsuqo owlaad tayibiina oo fiican oo baariyaala adigana allah ku siiyo waajzala sawaabaka abaalkaagana allah wanaajiyo abaalkaagana ilaahay ha wanaajiye xaasidnimay isku bedeshay maanta qofkiiba nimco iyo wanaag hela asagoo la ogoleen oo loo ogoleen oo inay ka baaba'do la rabaa loo tagaa maca daalika aad iyo aad ayaa arrintaa dhibaato weyn ay u tahay ku farax qofka muslimkaa khayrka uu helo dhibka ku dhacana markaa ka nax maa yucawadu bihi lawlaadu awlaadda waxa ilaahay loogu magangeliye subxaana wa tacaala awlaaddii aan dhalnaanna laka rabaa inay cisoodaan ama ay wanaagsanaadaan ama isha iyo shaydaanka iyo jinniga iyo dhibkoo dhan laga ilaaliyo maxaan samaynaynaa kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam yucawidu alxasana waalxusayn xasan iyo xuseen oo ilmo awoowe uu u yahay ahoo gabadhiisa faadimo ay dhashay ayuu magangelin jiray ilaahay wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi waxaan idin magangelinayaa kelimooyinkii ilaahay attaamati ee dhammaystirnaa min kulli shaytaan shaydaan dhammaantiis ayaan idinka magangelinayaa iyo haamada haama cudurkana waa la yidhaahdaa dhib kastana waa la dhahaa wa min kulli caynin laamatin il kasta oo dagaal badan oo xaasidnimo badan oo dadka cayuumanaadka keentana ilaahayaan idinka magangelina saasaa markaa owlaadda la dhahaa adigoo lugta bir garaangara oo maar ugu xiran sidaa keliya dheh ka tag khayr iyo wanaagii u noqonaysaa ilaahayaana badbaadinaya subxaana wa tacaala ilmaha sidaasaa la dhahaa uciidukumaa bikalimaati illaahi attaamati min kulli shayطaanin wahaamatin wa min kulli caynin laamatin ducaau adducaa'un waa duca lilmariidi qofka mariidka ah oo jiran fii ciyaadatihi booqashadiisa loogu duceeyo qofka mariidka ah ee jiran ayaad u tagtay maxaad dhahaysaa sideena ugu ducaynaysaa maanta marka loo tago waxaa la leeyahay arrintaas ma isticmaashay kan ma cabtay kan ma tilmaantay islaan xagga laga sheegi jiro xaafadaha deganaa cudurkii ii sheegi jirteen ma loo tegin ma laguu faaliyey waxaasoo dhan mamnuuc waay adducaa'u lilmariidi fii ciyaadatihi ciyaadada inta lagu dhex jira waa booqashada iyo salaantee laa ba'sa duhuuru in shaa allah deh laa ba'sa dhib ma ahaanin baas ma ku saarna dahuurun dembi dhaaf ayuu kuu yahay midkaan in shaa allah saasaa markaa loo dhahaa nin acraabiya ayaa nebiga u yimidaa la yidhi aad qanda u haysa rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa duhuuru in shaa allah acraabigii wuxuu dhahay la ma ahanuu dhahay balse waa xuma qanda karkarinaysa oo dhib badan oo mashaakil leh oo odayga u jiidaysa qabriga ilahay ha kaaga dhiga buu dhahay nebiga ka gadaal waa dhintay laa ba'sa duhuuru in shaa allah saasaa markaa loo dhahaa waxaad kaloo dhahaysaa as'alu allaha alcadiima rab alcarshi alcadiimi an yashfiika 7 maraat 7 mar dheh as'alu allaha ilaahay baan su'aalayaa ilaahi alcadiima weynaa wax ka weynna uusan jirin rab alcarshi alcadiimi carshiga cadiimkaa rabbigiisa ah an yashfiyaka inuu markaa ku shaafiyo 7 maraatin 7 mar saas ugu ducey kana soo tag fadlu ciyaadati lmariid